kusoo dhawow saacadda wasiir horeete warbaahinta bal waxa faahfaahin naga siisaa ururka dhawaana ka aasaasteen magaalada Cadaado ee caasimada ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Galmudug. waa mahadsantahay horta marka hore aniga waxaan ahay gudoomiyaha golaha midnimada iyo badbaadinta Galmudug waan ahay marka koowaad waa dhowahay golaha midnimada iyo badbaadinta Galmudug dhawaan ayaa lagu dhawaaqay laakiin asaaskiisu waa horeeyay ujeedooyinka badan oo muhiim ah ayaan laga leeyahay oo ujeedada loo aasaasayna waxa ugu muhiimsan in la helo Galmudug midaysan oo ku dhisan cadaalad qaanuun iyo dowladnimo in bulshada Galmudug la fahamsiiyo dowladnimada in bulshada loo sameeyo maaragtay bulshooyin dhawaa oo rabitaankooda ku timid qodobasaas oo muhiim ah ayaa loo aasaasay runtii golahan waxaana ka mid ah dhammaan bulshada Galmudug oo ayaa xubno ka ah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in golahan lagu gudbo arrimaha mataqaana qabyaaladda iyo maaragtay daalaysiga iyo qaabka ku imaanaya aan sharciga boon u badnayn waxay ku imaanayaan in maaragtay loo gudbo ayaan rajaynayaa ilaa haddeerna waxaan fiican ka qaadanay isu soo dhaweynta dadka ayaan qayb ka qaadanay oo dadka in isu soo dhaweeyo Galmudug hadda tensionka dhibaatada jirta oo hadda siyaasadda qawaasa ka jirana waxaan rabnaa meel fiican oo wanaagsan oo cadaalad ah oo in golahu inuu ka istaago xoogana la saaray inay Galmudug dib u burburin saacadda wasiir markii uu soo baxay in ururkan looga dhawaaqay magaalada Cadaado waxaa durbadiiba jiray dad ka muujinaya in ururkan uu yahay mid yacni mucaarad ku ah xukuumadda iminka jirta arrintaas bal maxaad uga jawaabaysaa adigu hadda gudoomiye tahay waa mahadsantahay horta number 1 hadda Galmudug jirta haddeer wax la mucaarado ma dhamma Galmudug la mucaarado oo maaragtay hadda la mucaarado meel hadda meesha taagantaa ka sii liidanaysaa ma jirto Galmudug ayaa hadda tabcaan iska ah maaragtay ayaa hadda isku kakab u baahan marka golaheena macnaha hadafkiisu ma aha Galmudug taan jirta hadda inuu mucaarado dabcan Galmudug masiirkeeda in la toosiyo oo maxay ahayd qaabka loo wada qaab ka duwan loo saxo oo qaladaadka hadda ay nimanka hadda faraha ku hay ku jiraa oo ay wadaan in maaragtay laga qabto lidaasaan sax maaha sida qaynuunku qabaa way jirtaa oo anaga talooyinkaas iyo barnaamijkaas oo noo dhisan yahay laakiin anaga maadaama la baxnay oo magaceena uu yahay golaha midnimada iyo badbaadada Galmudug midnimo mar haddaan sheegnay badbaadina aan sheegnay midnimo dadku inay ku midoobaan wax hawshay ku midoobaan kala qoobnaanta laga baxo weeye hadafkeeda badbaadina waxa weeyaan ka degtaa Galmudug weaknesskeeda ama jileeca oo hadda khatarta ugu sugan tahay inay ama kala daadato in anagu badbaadino Galmudug ay badbaadin maadaama hadafkeenu saalka yahay anaga inaan hadda maaragtay wax dhibaatayno oo wax jira baabi'ino ma aha macnaheedu waan gartay saacadda wasiir waxaa jirtay heshiis dhawaan ay galeen Al-Sunna iyo Galmudug adinku ururka badbaadinta ama golaha badbaadinta iyo midnimada Galmudug sidee arrintaas u arkaan waxaa horta runtii jirta oo dhab ah in qaabka loo maray heshiiskaas inuu sax ahayn oo markii hore la aadayo in qaabka loo aaday iyo dadka qayb galay iyo waxaas u dhashay dadkii ku habboonaa wax hadda la soo qaadana waxyaalo madmadowga ku jira laakiin annaga marka hore golaheena waxaa mabdiyan waxa qodobka mid qodobka hadda ku agrinay oo ah in ma la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah oo dadka rabitaankooda ku timid oo noo qoran oo madadiina ka mid tahay annaga in la heshiiyo oo Galmudug heshiisiyo boqolkiiba aan soo dhaweynaa waa rabnaa dadka ma kala maarmo taas waa qodob laakiin wixii heshiiskaas ku jira oo qulxi ah waa markaas aan la shaqaadi karin Galmudug maaragtay casriga ah rabnaa inay dhisanto waxa weeye in laga saaro laga wada hadlo in baa loo baahan yahay waan gartay arrimaha Galmudug dhexdeeda haddaan intaas ugu kaadino dhanka kale waxaa jira Soomaaliya arrimo kala duwan ka socda waxaa jirtay in siyaasiyiin ayaamaha dambeete ay warbaahinta la hadlayeen dawladda ay dhaliilayeen qaarkood ayaa la xirxiray waxaa kale oo jirta arrimo looga hadlayo dib u heshiisiinta iyo dastuurka adinku sidee u aragtaan golihiin arrimaha ka socda dalka aad iyo aad fiican weeye horta waxaan rabaa in halkaan annaga golaha badbaadada iyo midnimada badbaadada Galmudug annaga ah inaan halkaan oo dowladda federaalka aan mid ugu baaqno dowladda federaalka waxay ku jiri kartaa laba qodob hadday samayso number 1 dastuurka u degan oo dowladda federaalka u degan oo qaranka Soomaaliya loo dejiyo meel gaarka horta inay ka gudbin isku xadgudbin waa la rabaa waa qodobka waad qodobka labaad waxa weeyaan talo bulshada in tilaabooyinka la qaadayo la taliyo dadka la tashato oo qodobkaas waa qodobka labaad
horta xukuumadda sare intaasa laga rabaa dowladda gobolada nimanka la yidhaahdo hay-adaha dowladda kala duwan oo golaha baarlamaanka iyo aqalka odayaasha ama aqalka sare iyo siyaasiyiinta freelansiga waxaan ugu baaqaynaa in soomaaliya maantay ma astaahisho oo mana qaadi karto in wax la dundunso waxaa loo baahan yahay in aan wax la dundinin waxaa loo baahan yahay danaha la kala leeyahay in loo maro way fiican oo tasdiiq in loo maro in la iska daayo waxyaabaha maaragtay tirada badan loo matalan imbiishmentiyada ama waxa la yidhahdo mooshinada isku daba socda waxaasoo dhan dalka ay dhibaato ku yihiin marka annaga waxaa noo muuqata in dadka siyaasiyiinta oo soomaaliyeedna ay waalan yihiin oo ay maaragtay muxuu ahaa si power hunger ay nuwaba rabaan inay hadafka dhan ka fiirinayaan inay meesha qabsadaan dowladda hadda xukuumadda jirta oo madaxda sarena in badan oo ka mid inay dastuurka maaragtay ku xadgudbayaan laftigooda oo ayaa horta muuqata intuba waxa weeye dadka soomaaliyeed waxaad moodaa wixii loo isbaday ama loo maaragtay loo doortay inay ku xadgudbeen baad moodaysaa waxaa ku daliil arrimaha hadda la taaban karo مثلا هذا galmudug waxaa dhacay isbedel waxaa isqabtay dowladda iyo federaalka iyo waxaa isqabtay dowlad goboleedyada madaxdooda qaar ka mid way ku shideen oo waxay damceen inay xilka ka qaadaan markay abaabulada xilka laga qaaday oo iyaga la qabsadana waxay dhaheen wixii waxba kama jiraan oo dib uga noqdeen taas macnaheedu waxa weeyaan dastuurkii meel ay ka dhigeen hadda waxba waxay ku ajista garaynayaan ama ay ku abalay garaynayaan danta iyagu ay leeyihiin arrintaasuna arrin runtii qaranka soomaaliya u qalanta maaha markana waxaa leedahay xukuumadda federaalka soomaaliya madaxdeeda sare waxaa laga rabaa inay wixii ay u dhaarteen ay kasoo baxeen iskala daayaan dhacdooyinka qaladaadka badan oo soo noqonaya inay iska daayaan xukuumadda siyaasiyiinta iyo golayaasha kala duwanna dadka jaanis dowladda soomaaliya ku shaqaysa inay u ogolaadaan iska daayaan iyaguna waxaa la leeyahay maalin bulshada taagan oo macnalaanta waan gartay dalka waxaa loo ballansan yahay sidii madaxduba ay ballan qaaday in 2022 ay ka dhacdo doorasho qof iyo coda ma sideedin golaha midnimada iyo badbaadinta galmudug haddaad tihiin dalka arrintaasi waa gaari karaa 2022 absolutely waxaan aaminsanahay haddii gacmo sax iyo way sax loo maro inay dhici karto matalan galmudug oo hadda annaga aan joogno golaheenna u tartamaan rabnaa oo annaga baarlamaan dadka golaheenaas kamid uu dabcina inaan u tartano golayaasha kala duwan annaga inaan u diyaargarowno waxaan rumaysanahay in la samayn karo waxa ugu dhibka badan leh waxa weeye waa registrationka weeye oo ugu dhibka badan leh oo dadka registrationka iyo magaalooyin maqan oo meelaha qaarkood ka maqan oo mataqaanaa dadka gacanta ugu jira ayagana xalaa loo heli karaa oo waxa weeyaan haddeer somaliland oo kale way sameeyeen taas macnaheedu maaha dhulka somaliland la yidhaaho dhan inay wada tageen maaha meelay sheegtaygu waayaan dadkiibaa ka yimid kaararkiibaa la siiyey marka waxaa la samayn karaa waa kaararkuna wax dhib badan maahan oo kaararka matala aqoonsiga oo maaragtay casrigan sida loo sameeyaa waa la yaqaanaa mana dhib badna dadka waxaa la rabaa sanadka 2018 in la bilaabo registrationkoodii iyo kaararkoodii kabacdina waa in loo diyaargaroobo waxay ku xiran tahay waxaas rabitaan madaxda sare ee qaranka barnaamijkaas inuu hirgalo hadday iyaga rabaan in la socodsiin karaan ayaan ugu aaminsanahay waan gartay ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed codka dhageysan doona ama daalacan doona insha Allah dhammaan dadka Soomaaliyeed oo meel joogaan waxaan ugu baaqayaa marka koowaad in midnimada laga shaqeeyo in maaragtay wixii hore ugu soo gudbay faraha laga qaado in dowladnimada la aqbalo in madaxda dowladda dadka wakiilka u ah maaragtay loo fahmo aan lagu difaacinin matala qabyaalada lagu difaacinin waxaad arkaysaa caado laga dhigtay dadka markii nin uu qaldamo madax saraha qabiilkiisu inay dhahaan waa ceebkasaliin nin fiican oo soomaaliya oo joogana qabiil kale ay dhahaan waa balaayo qaba oo maaragtay iyaguna asigiyo maxabbay dembi gelin ay ka buuxinayaan labadaas extreme oo dadka soomaalidu u kala qaybsayin mar walbaba dad xaqdarro ku difaacaya kay ka dhasheen iyo dad qof kale Soomaaliya oo fiican ku weeraraya qabyaalad ku weeraraya labadaas way jiraan marka labadaas Soomaaliya ka waantoogaan waa ku talinayaa waxa la hasho ayaa ragaadka isku fogeysa markastoo loo baaragta la dhibaateeyo dadka hoggaanka ama qaranka la dhibaateeyo dadka hogaaminaya ayagoo martay si khaldanayn waxa weeye ragaadka la isku fogeynaya marka taasna waan qabaa dadka Soomaaliyeed ka midoodaan meel walba waxaan u baaqayaa dadka Soomaaliyeed dadka dagaalamaya inay dagaalka joojiyaan oo islaamnimada iyo Soomaalinimada la tixgeliyo taas intaasaan leeyahay dadka reer galmudug waxaan rabaa inaan ugu baaqayaa galmudug waa dhul ballaaran
dad badan oo bakashiyaal ay leeyihiin waxay u baahannahay kaliya waa nabadgelyo iyo isfahan waxaan rabnaa dadka galmudug joogaahu waxay dhibaato weyn ku noqotay waxaa ku noqday waa hogaamiyayaasha xukumaya mar walbaba waxay doortaan dadka ugu liitay doortaan mar walbaba xildhibaanada ha ahaadaan dadka ayaga u dirsadaan waa ummadda nuuci ugu liitay abay doortaan sidaas daraaddeed waxa weeye galmudug inay ku ilbaxdo dadka wax u dirsanayaan horta ay ka fekeraan midnimadoodana inay ku dadaalaan waddanka galmudug la yidhahdana in la mideeyo oo dad si midaysan lasu yimaado waxaan ugu baaqaynaa golaha midnimada iyo badbaadada galmudug wuxuu u baaqayaa dadka soomaaliyeed oo iliidka oo macnaha leh inay ku soo biiraan si ay noogu suuro gasho inaan owladaa mataqaanaa hoggaan sharci ah oo macno sameeya sida aan mataqaanaa dalka aan u warsoo dilay aad baad umahadsan tahay guddoomiyaha golaha midnimada iyo badbaadinta galmudug aad iyo aad umahadsan tahay